samaysa maanta xaggan maanta waxaan sameeyay xabad marwaxada oo hooya inta oo dhan ay ka cadilayd oo waan tuuray lahayd marka waan ku guuleystay magaalada Shinilana waxa laga yaqaano Cabdi Caliye ninka Xasan Askari cid garanaysa aqal 15 kunanaya oo ana ku tusi markaan ku tusi marka magaaladu leeyahay isna wuxuu leeyahay saddex maqsad magaaladu il kaliya tan beeleedahay Cabdi Caliye bay sheegtaa laakiin waa inay ogaato Xasan Askari marka waxaan ku soo bartay ciidanka 2 sano halkan Bishoftu xareysna engineering college yaa ka soo qaljibiyay marka shalay baan halkan intay waan la kulmay maanta alaabtu soo qaatay waa ka wada dhamaystiray anay markaan ku geeyna xafadayda haddaan ku geynayaa saad muraaxad igu samaysay ayadu la yiraahdo waan raaci doonaa ay goor marka maxaad baratay maxaa qaybta waxaad baratay waxaan aad ugu soo dheerayaa quraanka iyo marwaxadaha telefoonkana maadaama iga soconayno libaaxi la sii qaani joogo waan ka yar gaabsho bilaabin insha Allah bilaabay ما شاء الله marka muraaxada hadda waad samaysay okay marka imsa sanad diganaysa college-ka 2 sanad diganaysa ma askarinimada soo baratay marka ciidanka ma kala kaygan ku jiray 2007 baan halkan ka baxay marka kadib inta la qoray ka soo shaqeeyay marka ka soo daadegayna farsamada dana magaalo jooga inaan farsamadii baad ku shaqeysanaysaa degmadeed u dhalatay waxaan dhashay degmada Shinile qablahaygu waa jeedane halka laga yaqaano magaalada aan ku dhashayna waa Dirqabe laakiin halkan ku koray baan ku garaadaystan baa day magaalada ciidanka xageed ka gaadhay oo maxaad kalood baratay intii aad ku jirtay college-ka kee magaciibaad ku college-ka engineering xagu ku yaala magaalada ku yaala baratay ka soo magaalada ku yaala Addis Ababa ka soo rasay Bishoft Valley marka engineering college Valley ma kala kaga gaaraan sare waayahay magacaaga muxuu ahaa Xasan Askari waxa uu wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Shinile isla markaasina soo maray ciidanka difaaca qaranka waxa uu wax ka bartay kulliyadda farsamada gacanta ee Bishoftu loo yaqaano waxa uu maanta ku guuleystay samaysta inuu sameeyo muraaxadaasi oo muddaba hooyadan ka cadilnayd oo ah hooyo tukaanley oo ku nool magaalada Shinile wiilkan dhalinyarada oo dadku wali ay waxba ka garanayn waxa uu sheegay inuu sameyn doono dhammaan waxyaalaha la xidhiidha dhinaca Quraanka iyo sidoo kale dhinaca muraaxadaha haday tahay telefoonada waxa uu sheegay inuu hadda ka gaabsanayo balse uu bilaabi doono wadana Xasan Askari waxa uu ku nool yahay oo ku sidoo kale laga yaqaan qablaha jeedinay ka tirsan degmada Shinile waxa uu dhalinyarada ugu baaqayaa in la galo dhammaan farsamooyinka yar yar oo aan laga faanin fariinta u joonaysa dhalinyarada maxay tahay dhalinyarada waxaan jeedinayaa maadaama uu magaalada joogto wixii wax barasho ka baxsan ee wax barasho dhameeyay amba shaqo sugaya waa inay aqoontooda ay soo barteen tii soo baxaysa in oranay sugina waa inay farsamadooda ku meel baraan wixii wax barasho ka baxsan ee kana qalin jabin magaalo markaa joogto midab kastaad kala socon kartaa shaqo yar shaqooyin waaweyn gaari hadday tahay shaqo yar ay siman oran lahaa nin iyo fikirkii waa in magaalada ka shaqaysan aad baad u maasantahay Xasan Askari ciidanka wali ma gashay dagaal oo ciidanimadana ma soo baratay dagaalka 3 mar baan galay markii inta TPLF dagaalka ka dhawaay Ethiopia kala go'ayna lahayd sax marka goobta dhasil leeyahay sameyn wal looga tirsantahay halka baan dhowr mar kaga galay webiga gaashaana agsiisa marka wax dhaawac ma ku soo gaaray mar bi soo gaaro halka balnatus masigta guudkayga ayay iga dhacday waan bogsaday waan ku laamay halka bay iga dhacday laftay magaalada hilibkan bilaabtay kii saddexaadna dabaysha ay qaadeed xitaa gacanta waan ka jabanay inaad aragto mooyaan marka inta loo qoray Ethiopia waan u shaqeeyay laakiin hadda farsamadii aad baratay baad ku shaqeysanaysaa aad iyo macruur ma leedahay wali dhalinyar baa tahay ما شاء الله فرصمدا maxaad kala sameyn kartaa marka wax muraaxadaha ka sokow aqalada ma gali kartaa Quraanka aqalada waan galiyaadii macna aqaldan ma galini kuwi lagu biirsanay iyo kuwi laga iloobay
taayir yar hadday noqoto fiishad hadday noqoto ambuul hadday noqoto waxaa waan xidhaa ma waxay u jirta dee qarshi bay u jira meeshu qarshi kaaga jiro waad kala soo baxaysaa kaale aniga muraaxadii samee maanta xasan askari oo wax ku soo bartay jaamacadda engineering ee farsamada ee ku taalla bishoftu ayaan maanta kula kulanay magaalada Shinile isagoo ku guuleystay inuu sameeyo muraaxadaas marka waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo ku nool Shinile nawaaxigeeda hadday ka xun yihiin muraaxado ama ay wax ka cadilan yihiin la xiriir dhinaca koraanka fadlan waad la soo xiriiri kartaa teleefankaaga sheeg teleefankayga 0914 aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeennii koobnaa ee ku saabsanaa xasan askari iyo taariikh nolodkiisa inta ayaan kusoo afmeeraynaa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono xasan cabdi oo idin kala socotaan channel YouTube-keena warbaahinta wargeyska City haddaad nagu cusub tahay like iyo subscribe naga hilmaamin haddaad la joogteen waad ku mahadsantahay la joogistaada tan kulanti dambe amaana Allah